السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قارية مeel kasta dadweynaha ka joogta maan salaamay fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysan soo boqoto channelka subscribe inoo saar soo kale video-ga like gare oo share gare oo la wadaaga saxaabtada qaariga sad horaba iiga barateen waxay noo wadaa barnaamijkeeni toddobaadkii social media kaasi aan ku soo bandhigno ama ku qaada dhigno ama fikirkayga aragtidayda aan ka dhiibino waxa in toddobaadka aan ku jirno ama toddobaadka la soo dhaafay social media dhex socda ama dhex wareegaya amba loogu hadalhay inta badan yahay asxaabtida qaaliga barnaamijkeedna waxa gabadhii dad qalatada ahayd ee Hana Bukar loo oran jiray oo war cusub aan idinkayo sidoo kale inankii Bilaal Bulshaawi isagana warkiisa halku ku dambeeyay waxaan ku horeynayaa gabadhii dad qalatada ahayd ee loo oran jiray Hana Bukar gabadhii aan warkeeda hore idila soo wadaagay amba maalmaha social media dhex wareegisay ayaa waxa dhacday in reer Burca jooga ama reer Burci ay soo hadleen families ku dhan oo adeer iyo cuqaal iyo wax walba leh reerkaasi oo sheegay in 5 caruur ka maqayn sidoo kale hooyadooda ay ka maqan tahay run ahaantii soo qortaan commentiga inaanu anagu gabadhan been iyo wax ka sheegayna balse laakiin xaqiiqada jirta ayaa waxay tahay inay gabadhan tahay dalqalato ciyaalka xataa taasi oo ay soo hadleen reerkii Burca joogay oo yiraahdeen 5 caruur iyo hooyadood baa naga maqan sidoo kale uu hadlay ninkii iskuulka u dhigay ciyaalka oo sheegay inaan ciyaalka 9 bilood ka hor ay ugu dambeysay sidoo kale tukaankii ay biilka ka qaadan jireen maxaa la yiraahdaa aabahood oo dibadda ku maqan biilka ugu soo diri jiray uu isaguna uu ka hadlay uu yiri 9 bilood maan arag sidoo kale dad badan ay ka hadleen oo yiraahdeen maxaa la yiraahdaa Hana caruurta looga shakisan aanay ka codsadeenna wadanka Soomaaliya ee ku sugantay gabadha dalqalatadii inay u qabtaan hadii ay Soomaaliland tahayna ay Soomaaliland ay qacan ka siiso maadaama yihiin dadkan wax laga xaday dad Soomaaliland dara balse laakiin anagoo dadkii wax gudbinayay waxaan idinka codsanaynaa in idinku sidoo kale gabadha aad qabataan oo maxaa la yiraahdaa maxkamad la soo taago waxyaabo badan baa lagu haystaa kiisas badan run ahaantii waa gabadh ummadii Ilaahay kaga siisay marka qacmo bira in lagu qabto weeyaan waa in maxkamad la soo taago oo waajibkeedana la mariyo gabadha hadii aynu halka kaga tagno waxaanu soo qaadan doonaa qodobkeena labaad ee ka hadli doono habeenkan caawa kaasi oo inankii maalintii dhawatoola magaalada Hargeysa lagu xiray isagana idila soo wadaagay ee koobka shaaha calanka loogu sameeyay lagu xiray arinkiisa halku ku dambeeyay hadii aynu ka daba tagno waraanu saaka maqalnay ama social media dhex socday ama la soo dhigay waxana loo sheegay in inankii iyo laba kamida makhaayadii uu ka dalbaday koobka shaaha ee uu sameeyay koobka shaaha saddexdoodiba maxkamad la soo taagay markii la soo taagay 3 cisho rumaana loo diray hadaba su'aashan isweydiinayna waxay tahay inanka iyo labada inanka horta labada nin inay Soomaaliland yihiin inay Ethiopian yihiin waxay yihiin ma cadeyn karno balse laakiin inanka talow ma waxa miyaa la xukumi doonaa iyo labada nin mise inanka wadankiisa baa loo celin doonaa warka imika hadda ma hayno balse laakiin wixii dambe ka soo baxay insha Allah waan idin soo socodsiin doonaa hadii Ilaahay raahdo laakiin taasaan isagana idinka haynay arinkiisuna halkaas ku dambeeyay asxaabtida qaaliga ma jecli inaan hadalka idinku sii badiyo mana jecli inaad video-ga ku caajistaan waxaan halka ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeeni toddobaadkii social media waxaan idinkaga tagayaa intaan ku kulmi doono barnaamij sidan oo kala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh